hal nin oo dhalinyara oo maqtuug oo beledkan joogo lacagta dawladda dhaco oo dan aqoonin ma laha annaga marka ii timaadaan hebel waa tuug hebel waa tuug hebel waa tuug wara tuuga tahay lacagta dhaaf ma dhaadi inta u tagtid naming and shaming يعني qofka in la ceebeeyo la magacaabo wax ugu yar waay ma awoodid maahano xataa haddaadan rabin guriga inta ugu tagtid waa ina adeerka adoo kugu jufayahay war walaalu gaclay waxaan waa aakhir bali adduunyo beel jooji dhaxataa laakiin ha amaanin soo wax u qabsada maaragtay baabuurka ku socda maaragtay guriga uu maxaan ku yiraahdaa degan yahay maaragtay soo u libisay shaatiga oo firmaatada ah oo wata maaragtay markuu inta soo maro barafuun oo $1 jooga ka soo come on barafuun $1 jooga mugo ka soo arf inta waraadi barafuun aan tankant seed ku gadatay in la yiraawa seed ku gaartay saacadan $10,000 joogtay inaad gadatay seed ku gaartay in la yiraawa la warsada waay ilaa waa taqaan mushaarkiisa waa $400 $500 inta tuugu dhaxdeena oo sharaf ku leeyahay oo tuug aan la dhahayn oo aan qaaraanka u doonanayno oo aan masaajid aan dhisi lahayn beesa keenaan leenahay waana ognahay beesada waa istahay beesa xaaraana inay tahay isagu hadduu soo xaday oo xataa bixiyo bixistaasi xatooyadii waa dembi laakiin hadduu bixiyo waa sadaqaysanaya intuu yidhi uu bixiyey inay sadaqa u tahay lama hubo laakiin dembiga inuuna ka soo gaaraynaa la ogyahay nin tuuga lacaguu xaday hadduu agoon siiyo xatooyadii dembigeedii waa loo haystaa laakiin agoonta maxaa lacagta u siisa looma haysto hadduu adigu ku siiyo maxaad u siisa ninkan looma haysta adaa lagaa rabaa xoolahan aad og tahay haddaadan ogeyn maba ogidba war dadka lacagta dawladda dhacaayo xadaayo oo jidka u taagan aan ka celino inuu ilma eegto dawladda meel kasta ma taagna qof kastana ma ag taagna laakiin adikaa ag taagan adikaa ka badan dawladda aan ka celino